لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله. xaflad si heersar ah loo soo agaasimay oo lagu weyneenayo habeenkii la dheelmiyay suubana nabigeena Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee oo ku beegan 27 bisha Rajab ayaa lagu qabtay magaalada Rustenburg gobolka Northwest ee dalkani Koonfur Afrika. xafladan oo soo qaban qaabiyeen golaha culimada Soomaaliyeed ee Ahlus Sunnah wal Jamaaca ee dalkani Koonfur Afrika ayaa waxa ka soo qayb galay madaxda jaaliyada Soomaalida, ganacsato, culimada kala yimid gobolada kala duwan ee dalkani Koonfur Afrika iyo marti sharaf kale. ugu horreyn ayaa waxa munaasabadani ka hadlay Sheekh Cabdulqaadir Sheekh Maxamed Feerayare isagoona tilmaamay qiimaha habeenkan la dheelmiyay suubana nabigeena Maxamed naxariis nabadgelyo korkiisa ha ahaatee oo ku beegan 27 bisha Rajab oo uu leeyahay dadka Islaamka ee ku nool daafaha caalamka. waxaan meesha isugu nimid inaan Allah Raxmaan ee ahadka aan ugu shukrino nimcooyinkiisa waaweyn nimco kamid ah inaan ugu shukrino nimcadaas oo ah habeenkii nabigeena Maxamed calayhi salaatu wasalaam la dheelmiyay oo lagu soo farad yeelay shanta salaadood ee aan tukanayno. waxaa sidoo kale isna madasha ka hadlay Sheekh Cabdisalaam Sheekh Maxamed oo ku magac dheer kutub Quraan. ilaahay baa nasahan dheelmiyay adoonkiisa ka dheelmiyay masjidul xaraam ilaa masjidul aqsa intaas waa dheelmintii masjidul aqsa ilaa ilaahay la kulmay waxa la yiraahdaa mi'raaj. arrintaasi waa arrin muhiimad leh oo u baahan saacad walba iyo sanad walba in la xasuusto waxaa yeelay insha Allah ta'ala dib aan ku ogaan doono maanta. si kastaba ahaatee xafladani loo qabtay xuska dheelminta nabigeena naxariis nabadgelyo korkiisa ahaatee ayaa ku soo gabagabowday jawi qurux badan iyadoona sanad kasta xuskani uu ka dhaco meelo badan oo dunida muslimka kamid ah. Cabdinaasir Soomane, telefishinka caalamiga Universal TV, magaalada Rustenburg ee dalka Koonfur Afrika.